cararay qolkiiba ana walaa kabi hataa wala ana talaabo kulli tagay waan fiiriyay nalkii baan daaray nalku dasana waan dar qolkii waan furay waan fiiriyay misaxakii gabadhii iyo dhig saas u soo qolqolaysa biyo kale oo qolqolay gidaha soo fiiriyay afta dhinaca gidaakana far waaweyn oo dhigeeda ayuu ku qoray oo ku jeclahay kaama maarmo oo ku xisi doona I love you baby sorry ayuu gidaha soo uga buuxiyay waxaad marka hore iga warantaa sida ay wax u dhaceen ee aad u aragtay sheekadu waxa dhacday aniga horta gabadha isku meel baan degnaa daris baan ahayn gabadha aniga waxaan deganaa qolada ugu horeeyaan degnaa iyaduna qolada ugu dambeeya degantahay ilaahu naxariista gabadhaas jimcihii aniga kubad ku maqan ayaa wax soo jimciga soo laabtay kubada jimci tagay waa soo laabtay waxaan imaaday koodi habeenimo guriga imaaday marka waxa arkay ninkaas oo banaanka istaagsan oo shaqaansan oo cirka maraya bacdi wiilkii waxa ugu dhahay adiga waxa ugu dhahay guriga inaan tagaan rabaa macnaha banaanka maanta dhan adiga guriga ma joogin markaasaan ku dhahay saaxiib macaan inta badan islama socono kuma arkin maxaa dhacay markaasuu ugu dhahay waxa maahan maanta waan cabay sana suubiyay waan shaqaansanay muxuu suubiyay markaas dagaalka intuu dhicin ka hor weeyaan jimcihi weeyaan sabtidii wax dili rabaa marka jimcihi wuxuu ugu dhahay gurigan tegaya banaanku fadhiyo waa gartay guriga uu tagay gabadha caadi waan isku naqaanaa oo isla sheekaysan jirnay caadi adiga dir waxaan isku sheekaysan jirnay caadi dirs banaan wiilkii uu baxay guriga uu tagay adiga 20 daqiiqo isagoo maqneen ayaa gabadhii ordaysa ay timaado guriga soo qarqaracday waa galabtii jimcaha galabtii jimcaha kadib maxaa dhacay kabacdi soo qarqaracday albaabkan ka furay mise gabadhii way oynaysaa maxay kugu tiri marka waxaan ku dhahay maxaa dhacay markaasay dhahday kaalay ninkan ma afgaranayo halkan taagan yahay wuxuu rabaa inuu dhaho dharka dib qasabaan kuu fuulaya qasabaan waxa kuu sameynaya haddaad isiin weydid amba cunugaagan ka jaraya amba aad isiin bacdi waan fiiriyay waan tagay ninkii meesha saaran waan la soo hadlay waan soo kaxeeyay uu soo raacay gurigeygan keenay biyaan siiyay waan dejiyay cuntaan u kariyay wallahi waan dejiyay aniga lagu wiil kale xataa meeshii la degnay ma Soomaali baa labada wiil waxa weeye lagu wiil Afghanistan weeyaan bacdi waan dejiyay waan la hadlay kabacdi ninkii waan ka kari waayay wuxuu taagay inuu gurigeyga tagay weeyaan naagteeda anaa qaba waa iska xaaskiisu weeyaan waxaan rabay in ay soo biso weeyaan guriga ku laabtay weeyaan ayuu tagnaa أنا شيء راح أقول ده ساعة فدهكاس أنا أتجاهي لكلا صاحب ضايع وحسب اسمه فعنا أنا بالواحد أيضا نبكي صوفي أنا يا برشيد هيا قبل ما أتجاهي الباقي يقفرتي وحيود هذي وعلي هذا ما تدري بتلسه ما تعرف أنا معلوم البند بتكو قبل هذا سواء معلوم البند قرقي أنت بيجي نادوا ونشوا حبوا أم بقرقوا حبوا أيوة كذا هيا وقفنا ومش شايفين بورسنا ومتعاون ضمنكم متعاون هيا مركز عليك ما حد سميسه مركز أنا والله هذا وين جدا وين تجي ونشكي وين تجي ونشجعي وحكون ده نكني من في يوم معه معنا وشارين أو سمينا ورا معه هيا مثلا وشارين وسمينا ورا معه بالمركز فيه بريطالة أروني ماذا أنا كوكينا هي بريطالة ولا حد استان هيا وصباح أدبلا ما يستان وصباح سبتيجا صباح سبتيجا ها هيا wiilkii waan kaxeeyay gurigeen geeyay uu seexday hal sabti subaxnimadeeda soo kacna markaa haye biyay adan cuntadii waan u kariyay uu cunay isagoo markaan aan arkay inuu caadi yahay uu hadda uu ninka fiyo yahay ayaan kaxeeyay waxaan ku dhahay bal orod u tago halka waqti fadhida jaranjadaydu fadhida waqti jaranjada fadhida la hadalo bal raali geliyo madax ka dhunko bal qalabkaaga dul saaran ragaatee waxaad ii sheegtaan labadooda guriga ma wada deganaayeen labadooda way wada degnaayeen laakiin guriga iyadaa lahayd isagoo dhinac kale u degnaa oo isla qaybaha dhismaha uu ka kooban yahay may qayb u jirtaa adi 4 kilomitir 4 kilomitir meel u jirto deganaa haye
marka iyadana sharciga u raadinaysay oo macnaha way u dacwoonaysay in ninkeeda ay iskuursadaan ay dhinacan doodka u qoraan inay iskuursadaan ay meel wala degi karaan isaga sharci mu haysan bila sharci waa loo diiday fara laga helay haye markaasuu baxay uu tegey iyagoo caadi oo isla sheekeysanaya meel fadhiyaan sheeda ka fiiriyey ay fadhiyaan marka arkayna isla sheekeysanaya waan ka tegay aniga waa gartay waan ka tegey guriga iska tegey cabaaraj waan ka baxay magaalada iska tegey guri kale oo saaxiibadayda iska tegey halkaasaan kaga maqnaa fiidkii 22 soo laabtay guriga waan baxay waan seexday 6 subaxnimo bal wax albaabka hore ka furay ma aqaani albaabka isoo qaraacay ma arag guriga aad deganta adiga gabadha gurigeeda ku deganaa gurigayga aan deganahay waxa weeye kuwan ugu horeeya kuwa ugu dambeeya degnaa waan gartay soo qaraacay waan furay albaabka furay markaasuu nin waxa weeyaan xasan oona sidii shalay ka dara haye marka muxuu kugu yiri markaasuu ii yimaado wuxuu dhahay adiga Soomaaliya adiga wiilka Soomaaliya adiga Soomaaliya banaanka u soo baxay banaanka u soo baxay gacantii qabtay markaasuu dhahay ina kale waa raacay halkii deganaayeen jikadu geey marka qolkii waxa ay muuqdeen jikadu geey haye kadib waxa arkay ninkii 3 dhalama u saaray 4 dhalo oo diinta iskaga dhigay oo lugaha iyo qamcaha oo isku gubay oo isku qorqoray magaca gabadha ilaa naxariista yani magaceeda aad isku qoray jirkiisa ku qoray isku qoray ma dhaawac qoyan buu ahaa oo dhiig leh mise wax hore ahayd dhaawac cusub buu ahaa marka isku qoray dadka u shina xataa oo saarneed mindidii iyo oo saarneed oo dadku u saarna sagaal buu u tagay halka wax lagu karsado weeyaan sagaal bal lambar uu ahaa mindi waa u saarneed saas isku qorqoray marka okay xagee marka uga qornaayeen maxaas ku qornaa labada lugood iyo halka camba ugu qornay marka uu waribo sida adiga tootu oo kale isku buuxay haye بعد أحكي دانيو محاكاسية ونسبة مجعلة ما رتها وانشعلا وانسكو قري كمان مارمو يضي ما شعلا مقاساو حند أنا واحد الموضوع مركا إنا هردان تذكلا ماشي إنا دسكي كلا لدقنا ماشي توغانا هردان بالموضوع هيا وأحكي دانيو بالخالة بناك الصبح بناك بشيك سنة بناك عبار وان دجيلي كرسي وان فريسي والله هذا أني لو دي ويلو كلا والله الليني بعد مركو أفرت دقيقة سوريتي أيوه يقول هاي قوادي وان دي إلى أون حرصو الله يرحمك وان دي لكوبان كسي haye aniga markaas ma aaminin macnaha wax suurtagalay lama noqon haye kadib maxaa dhacay waa aamin waayniyo waska kaftamaysa fariisto markaas uu ugu dhaay wallahi wanda uuban ka sii ilaa uu naxariisto anaga markaas in soo yar aamin rabo ayuu rabin inuu la dagaalamo marka muxuu kula dagaalamayaa wallahi wuxuu la dagaalamay xataa ma garanayo uu qabtay saaxiib uu dhahay أنا يقطعون ظهر بينه يلقى أو رسن يجد عليه بحد عمل يقول لقى كمان نسيت له أوسيبتي وكنت فرستة وحقول له واحد شيء سحمية مقصود على حاول والله من دليل لابد يبقى خد عليه عاوي ربع قمعي قبطة وانقبنا واحد دميل خد بولسك هو وعي أخد عليه ويل بنخد بحصل في ربنا رنتي ده سدا ويلك وقع شلهاي أيوه أنت ما قصدك وقع أيوه ربع إنه نجفك هذا هي بعد ويلك أخد هاي حبتي يقول كي بالكالي نلاقه بال أنت ستة بنتي بال نلاقه هي نلاقه بولسك بنوي ما تمركع كدي محي سماية بولسك بولسك ما يسوي مادين أنت بولسك سيكون مشكور سراي يسوي مادين أنا عرّي أنا قلت أصلاً صوّه بين البنت تاني كنت تا هي وأنا عرّي قلت كي وأنا والله كبي حتى ولا أنا كل تجي وفيري نركب عن دار نركب السنة وندر قلت وفيري مساحة كي جودي يديك ساس وصاق كل السد يوكله marka ma dhulkay taala mise sariirta dhulkay jiftay ay wax dhaawac oo arki karto indhaha ay qaban kareen kuma muuqan marka laga reeb dhiiga qolay gidaha soo fiiriyay afarta dhinac gidaha far waaweyn oo dhiigeeda ayuu ku qoray oo ku jeclahay kaama maarmo oo ku xisi doona I love you baby sorry ayuu gidaha soo uga buuxiyay haye inda marka saas kuma mashquulsan marka uu fiiriyo waa ku dadagay booliskii oo wacay booliskii ambalaas oo wacay isla markiiba soo koreen haye
fiiriyeen ambalaasta degdeg u timid way fiiriyeen waxa dhan naftu ay ka baxday haye adiga dareenkaaga markaas u noqday aniga markaas niyo shock baan qaaday waan shoogsanaa ilaa hadda sax ma aan shoogsanahay حتى waxay balansan kan adi caafimaadka la fiirinayo dadka inay caafimaad qabaan kale haye booliska ma ku wareysan adiga booliska hadda waa ka imaad saakii wareystan wixii xaq u sheegay sida hadda kugu sheegay oo u sheegay iyo wixii daawan u sheegay way wareystaan adi 4 saacadood bay haysteen 4 saacadood bay ku wareysanayeen 4 saacadood bay wareysanayeen waxaan galay 9kii waxaan ka soo baxay 12kii waan ka soo baxay haye 3 saacadood hadallo uu kugu yiri oo aad xasuusan tahay ma jiraan marka laga soo tago in gabadheedu waa dilo uu ku yiri hayay ay wuxuu igu dhahay hadda si deen weydid oo inaan baxsaan rabay si deen weydid waxa ku dilaya saaxiibaday amtida ku dilaysa adigana ma badbaadis anigana waxa kuma mashquulin waan qabsan ani waxa maskaxda ma sii galin ani waxa ii cadad inaan arko booliska inay qabtaan aan qolka soo fiirin runtii tayna beentita haddana anigana saamaca bal wax sameeyo ma garanayo walaa waan ka xumahay waa arrin dabcan aad u adag marka qof xaalad noocaas uu goobjoog u ahaa ama uu arkay ehelkiina dhibaatada iyagana waxaan uga tacsiyinayaa dhibka gaaray gabadha adigana waxaan kuu rajaynayaa insha Allah inuu caafimaad ku siiyo boogahaagana uu kuu dhayo insha Allah saaxib ilaa naxariisto wallahi saaxib ma ilaa hadda wallahi mustaaxan soo jeedas insha Allah wallahi mustaaxan madaxa ay xanuunaya dibgeyga waxa sibaan ahay wallahi insha Allah waxaan ku rajaynayaa caafimaad naso caafimaadka ka shaqeey hurdo fiican insha Allah hurd qeyr badan baan ku rajaynayaa insha Allah insha Allah saama waa mahadsantahay